السلام عليكم دمانتين بأخيارتا مركا هودا نغلا سعوتا برنامج كان حيسيسا waxaanu maanta barnaamijkeena ku qaada dhigaynaa hadii ilaahay yiraahdo guusha iyo markaa guuldarada ama fashilka iyo guusha waa maxay fashilku se waa maxay waxaanu soo qaadanaynaa markaa tusaalooyin fara badan dad markaas ku guuldaraystay arrimo ay rabeen inay ka mid dhaliyaan kadibna markaa dib u guuleystay oo aan markaa intay guuldaraysteen oran hadaynu guuldaraysanay aan iska seexano balse waxay sameeyeen dadaal dheeraad ah oo marka ay kaga meel gaarayaan go'aankooda ah inay guushooda ka mid dhaliyaan dadkaas ayaa waxa ka mid ah ninka la yiraahdo Michael Jordan tusaalaheena koobaad maanta waxa weeye Michael Jordan ninka la yiraahdo ninkana basketball-sha aad iyo aad ugu xeeldheeraa wuxuu ahaa badal ninkan ciyaarta la yiraahdo NBA ciyaartan oo uu ku guuleystay 7 maraad waxaana uu noqday markaa ka ugu qaalisan caalamka laacibka adduunka ugu qaalisan 5 jeer wuxuu noqday xidig ninkan markaa haddaan taariikhdiisa kooban iyo markaa fashilkiisa aan idinka warramo ninkan ayaa wuxuu ahaa markii uu tegay meesha la yiraahdo Afriqiya ayaa waxa uu ku biiray markaa koox markaa ka ciyaarta Afriqiya kooxdaas ayaa waxa ay dibadda u soo turtay ninkan isagoo markaa ay laga diiday inuu dhigto sababta loo soo turayna waxay ahayd inuu ninkani aanu markaas haysan markaa qarashaad iyo waxyaabo markaa uu ku dhigto ninkan ayaa wuxuu sameeyay markaa gurigiisa ayuu tagay kadibna wuxuu isku xidhay albaabka dabadeedna waa oohinta kadib wuu fakaray kadib markii uu fakaray ayaa wuxuu sameeyay talaabooyin uu markaa wishiisa ku rumaynayo isagoo markaa haba yaraatee aan u aabayeelaynin waxaana uu markii dadaal fara badan sameeyay uu noqday saad u jeedaan badal ama nin geesi ah oo haliyey ah oo caalamkana caan ka ah oo markaa wax badan qabtay markii hore wuu guuldaraystay laakiin markii dambe waa guuleystay qof kasta inaga midna marxaladaha kan uu soo maraa marka waxa loo baahan yahay inaad you gonna give up you are not going to give up inaad marnaba isdhiibtid maaha waa inaad hore u socotaa keep going ninkan kale aynu maanta tusaalaheena labaad ku soo qaadanayno ayaa wuxuu yahay Albert Einstein ninkan oo ah caalamu fiisiya ama caalamu physics ninka physics-ka caalamka ugu khatarsan ninkan ayaa marka haddaan kaaga taabto noloshiisa waxa uu yiri nin macalinkiisa ahaa oo u dhigi jiray ayaa wuxuu hadalkan yiri wuxuu yiri ninkani ma awoodo inuu dadka markaa la hadlo markaa iskuulka uu la dhiganayo waxa kale oo yiri ma noqonayo waligiis ninkani macalinkiisu shakhsi markaa qiimo leh kadib ninkan saad u jeedaan caalamka adogtiinba wuxuu noqday ninka ugu sarreeya ee looga dambeeyo khubarada physics-ka waxaana la sheegay qarnigiisii maskaxdii ugu weynay inay ahayd Albert Einstein ninkan markaa ayaa wuxuu yahay nin markaa ka rumeeyay hadafkiisii aan u dhagtaagin hadalladii markaa dadku ay ka aaminsanaayeen ee waxyaabo ay ka aaminsanaayeen number 3 aynu ku qaadanayno gabadhan ayaa iyaduna waxay ahayd gabadh aad iyo aad bay gabadhani u ahayd gabadh aad qiimo leh balse waxay ka shaqayn jirtay meel markaas idaacada maalmaha ka mid ah ayaa wax dhacday inay gabadhani idaacaddii laga soo eriyay oo la yiri gabadhani maadaamay aanay lahayn gabadha akhbaarteedu aanay qiiro badan lahayn ma munaasib ah inay telefishinka ka shaqayso inta kagamay fadhiisan gabadhani guuldarrada ka soo gaadhay marka meeshaas horey uga socotay waxayna samaysay barnaamijyo aad u khatar ah oo ay telefishinada ka sii deysay waxayna noqotay gabadhii ugu qiimaha badnayd ee telefishin soo hor fadhiisata waxayna ku guuleysatay jawaasiyo fara badan iyo guul oo waaweyn iyadoo markaa ka hadashay
caalamka hortiisa kumanaan jeer iyadoo ku guulaysatay barnaamijyo iyo shahaadooyin iyo Nobel Prize iyo barnaamijyo aad u khatar ah oo ay markaa caalamka ku soo caanbaxday gabadhani oo ay noqotay gabadha caalamka telefishinada barnaamij ka baxa ugu xiisaha badan soo deysa. ninkan ayaa isna wuxuu yahay Walt Disney oo ah nin markaas ku xeel dheer ilaa 66 jaa-iso inuu ka qaatay akademiga ama marka meesha uu ku dhiganayo waxa la yiri markiisii ugu horeysay ayaa waxa laga soo tuuray ninkan isagoo meel saxaafada ka shaqeynaya macnaha yaraanta uu yaraa ninkani fikirkiisa oo ahayn fikir cusboon sadarteed waxay u soo eriyeen oo yiraahdeen ninkani maaha nin ka sii shaqeyn kara saxaafada. ninkan kale ee la yiraahdo magaciisa adarkaysaan badanaaba taqaanaan Lionel Messi ayaa wuxuu ninkani ahaa nin caalamka dhan markii uu ku soo baxay aad iyo aad groupkii ka ciyaari jiray waxaa ninka aad iyo aad yar oo umrigiisu markuu ahaa 12 jir ka yaraa dadka kale ama kilaabka dadka kula jira aad uga gaabnaa cilad markaa ka haystay xagga lugaha isagoo markaas loo diiday la yiri ninkani marnaba ma noqonayo nin markaa ku haboon inuu kubadda cagta uu ka gaadho meel. waxayna ka soo suureen fariiqa ama markaa kubadda uu ciyaari jiray ayaa dib looga soo tuuray balse sadarteed dadaal fara badan uu sameeyay waxa uu noqday laacibka caalamka 2 jeer iyo ka badanba waxaan ogtihiin dhamaantiinba. ninkan la yiraahdo Steve Jobs ayaa waxa la sheegaa in markaa ninkani uu ahaa nin aad iyo aad u maskax badan ninkan oo la sheego inuu ahaa nin maskaxdiisa marnaba aan la soo koobi karayn. ninkan ayaa wuxuu aasaasay shirkadda Apple wuxuuna kala aasaasay shirkadda Pixar. ninkan ayaa markaa waxa la sheegaa yaraantiisii inuu ahaa nin markaas ku nool nolol adag waxaana laga soo eriyay iskuulka yaraantiisii halka aabihiis uu ku jiray marxalad adag oo uu isku sigtayba inuu istilo marxalad fakhri dartiisa. waxaad ku aragtaa nimankan aan kaaga sheekaynayo inay yihiin niman adigoo kala haddana ay markaas guuldarrooyin fara badan ay soo gaadhay ay dhabarka u dhigeen ayna dhaafeen oo ku guulaysteen waxay doonayeen. inankan aad arkaysid waxaa la dhahaa Aminin wuxuuna ku guulaystay jaayisad 13 jeer jaayisada jacaylka iyo heesaha jacaylka waxaana soo saaray 90 milyan oo markaa album oo gaaray markaa caalamka ka hortiisii waxa uu sheegay ninka la yiraahdo macalinkiisu inaanu ninkani soodkiisu fiicnayn sadarteed aanu markaa munaasib ku ahayn inuu wax noqdo oo qiimo yeesho. haddana waxaad aragtaa inuu isbedelay xaaladii oo uu ninkani noqday nin qiimo leh. ninkan aad arkaysaa Thomas Edison waa ninka ugu soo ikhtiraacay marka la yiraahdo waxaan la yiraahdo laambada ama guluubka waxaana macalinkiisu yiri ninkani waa qabi ama qof markaa damiin ah oo aan waxba fahmaynin. yaraantiisa iskuulka markuu dhiganayay ayaa dadku waxay ka aaminsanayeen ninkan inaan nin waxba hal iyo bactoona garanayn yahay balse wuxuu noqday ninkani khubaro hadeer caalamka laga dambeeyo maskaxdooda. oo waxaan kiib gareynayaa guushaas waxaa la gaaray waqtigii aad oran lahayd guusha ayaan ku dadaalayaa haddii aan guuldaraysto waan guuldaraystay waana guulaysan laakiin marnaba inaanad isdhiibin marnaba inaanad nolosha isu dhiibin mar walba waa inaad keeping forward xagga hore eegta ee xagga dambe aanad eegin hore u soco dib ha u socon waad guulaysan kartaa 10 jeer haddaad guuldaraysatid waad guulaysan kartaa marnaba ha isdhiibin never give up.